madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Goodlaaw Xuseeni wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta gaaray degmo xeebeedka Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Cadale, waxaana halkaa ku soo dhaweeyay maamulka degmada Cadale, xildhibaano, saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay in socdaalkan uu ku yimid degmada Cadale uu ka duwan yahay socdaalkii hore, isagoona sheegay in safarkiisa uu ku qotomo dardargelinta howlgallada lagu xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan ka mahad celinayaa soo dhaweyntiina wanaagsan iyo qalbiga wanaagsan iyo walaaltinimada iyo kalgacalka ay ku jiraan. Aan ka mahad celinayaa, waana ku mahadsantii soo dhaweynta. Waxaan rabaa dadka bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Cadale oo ku sugannahay iyo degmooyinka kale oo ku jihaysanna, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, inaad idiin sheego booqashooyinka aan ku imaan jirnay waa ka duwantaa booqashada aan maanta ku nimiday. Waxaan isugu imaan jirnay annagoo danahayna iyo horumarka deegaanka iyo xaaladda guud ee stateka iska waraysayno, laakiin maanta way ka duwan tahay. Booqashadan u nimiday waa dib u xuraynta dalka guud ahaan, gaar ahaanna midda Hirshabelle. waxaan rabaa nimankan horumarka u diiday ummadda Soomaaliyeed ee argagixisada ah ee aan saqiir dhaafaynin oo waayeel dhaafaynin, meel looga baxsaayna la waayay oo masaajidka manaatagtana kugu dhex dilaayo, inaan gacantayna isaga xuraynaa la rabaa. waxaad maraka tihiin gobollada dalka waa lagu dhiiraday, gobollo badan oo dhib ku haayeena iska dulqaaday, gacantooday ku ciil baxeen. waxaa laga rabaa ummadda Hirshabelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe maanta joogno, yar iyo waayeel in qoraga in la qaato. dadkaan aan afkooda la aqaanin ee iyagoo hal qoro wata in ku yimaado raba inay xoolahaaga iyo ma aragtaya ummadaada iyagoo socda in ku yimaado kugu dhibaateeyaan rabo. wuxuu wata ma jiraan soo socdo ku imaahaya, adoo qoragii ka raba, adoo dharkii ka raba, adoo dheefti ka raba. dhibaato iyo gumaysiguna ku keenay. horumarkina waa ku diidan yahay inaad noolaato, oo ku diidan yahay oo sharaf ku noolaatee inaan ya qoryahayna qaadan iska dulqaadna nagala raba. haddii Ilaahay ka sidaad u go'aansateen oo hubku soo qaadateen, cid kasta degmadan timiday iyo cid kasta gobolka timidna waa maasantiin aan leenahay. ballantaynuna waa shabaab oo iska dulqaadno. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakiban Soomaali Cable TV, caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle, magaalada Jowhar.